kulankan ayaa lagu muujinayay sida maamulka gobolka Banaadir ay u go'an tahay garab istaaga aqoontii ay ka tageen dadkii ku shahiiday qaraxii 24 Juulaay ka dhacay aqalka dowladda hoose Xamar. Sidoo kale waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah aqoonta danta yar ee degan magaalada Muqdisho. Siyaayaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka Maaliyadda Ibraahim Cumar Mahadalle ayaa si dhow xog wareys ula yeeshay dhalinyarada carruurta iyo aqoontii ay ka tageen shahaadadii ku shahiiday qaraxii dhawaan ka dhacay aqalka dowladda hoose Xamar, isagoo u muujiyay garab istaag. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Jaketi ayaa xaqiijisay in bulshada caasimadda ku dhaqan oo dhan looga baahan yahay inay ka fikiraan sidii loo qayb qaadan lahaa dhismaha mustaqbalka carruurta aqoonta ah. Awlaadaaniti inta nafta nagu jirto ee xayaatada aan haysano insha Allah waxaan rajaynayaa maanta inaan la ciidno, aan la faraxno, aan galno booskii waalidiintooda maadaama aan ahayn dad wada shaqeeya hal qoys aan ahayn. maantana qoyskii inuu sii adkaado ma ahane wax kale inaysan jirin. Siyaayaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibraahim Dheere ayaa tilmaamay maadaama weli lagu jiro maalmihii Ciidul Adha in ujeedada kulankan uu yahay in la dareensiyo aqoontii ay ka tageen shahaadadii Muqdisho garab istaaga maamulka gobolka Banaadir. anaga haddii aan nahay madaxda gobolka Banaadir waxaan kafaalo qaadaynaa in ilmahaasi aan ogaano noloshooda mushaarkii ay qaadan jireen aabiyaalkood xilligii ay noolaayeen ay qaataan. waxay tan ku cadaynaysaa in anagu ay naga go'an tahay inaan ka warhayno ilmihii ay ka tageen walaalaheen. gaar ahaan aniga waxay ahaayeen agaasimaalkeygii si gooni iyo hoos imaanayay qaarkood saacadaha moogaa intaasan geeriyoon ka hor. aqoontana uu la kulmay siyaayaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay sida naxariista leh ee loogu muujiyay in la dhinac taagan yahay, waxayna u mahadceliyeen siyaayaha gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaan ka mid nahay qoysaska dadkii wax ka soo gaaray dhibaatadii meeshaas ka dhacday. waxaana keenay aqoontii oo ay ahayd mar walbana ay garab taagnaayeen maamulka gobolka Banaadir oo uu horeeyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir. khayr Allah siiye wax ugu khayr badan oo la waafajiyana waxay ahayd aqoonta in mar walba gacanta lagu hayo. rasuulkan kaleey salaatu wasalaam hore uu yiri ninkii aqoon kafaalad qaada hal aqoon ninkii kafaalad qaada anigii asagaba waxaan maci ku noqon doonaa jannada. maamulka gobolka Banaadir wuxuu isu xilqaamay oo uu istaagay inuu galo bedelkii iyo wehel inuu u noqdo aqoontii oo dadkii ku shahiiday musiibada ka dhacday gobolka Banaadir. marka waxaan uga mahadnaqaynaa maamulka gobolka Banaadir oo horkacaya gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha gobolka Ibraahim Dheere.